miiska saa loogu fidiyey waa Axmed Rashiid iyo raggii ka dambeeyay falka foosh xun oo ay walaalkeen u geysteen waxaana idinku bishaaraynayaa magaalada Nairobi inaysan ka dhici doonin dib dambe maquusayaashii dadka dhiigooda ku qabaysan jiray inaysan dib ugu qabaysan taas ayaan idinku bishaaraynaya xaalku wuxuu marayaa markay sheekadu rogrogantay meelo badan martay xaaladdu ana idinka daba geyn doonee xaajo waxay maraysaa Shukubaaba hooyadiis oo ay qaraabo dhow ahaayeen Axmed Rashiid in la yiraahdo walaal xaalku sida mooday maaha waa ku qaldamay xagay maraysaa saan weeye walaalay xaajada ka soo celi maxkamadda iyo meesha wax jiraan ma soconaysaa socon maysa miya warniyo hooya iga hooya xaaladdu waa isbedeshay sidii la moodayayna way ka weynaatay wiilkan baan waxaan rabaa inaan xog yar idinka siiyo ninkan aabihiis waa nin sarkaal boolisa wey sarkaalka booliska ah oo Shukubaaba dhalay iyo Axmed Rashiid isku waxay ka soo baxeen isku academy bay ahaayeen niman tababar soo wada qaatay bay ahaayeen hal meel ku soo wada tababartay waxa la isdheer yahay xaq darrada iyo dhiigga laakiin xilka iyo darajada iyo boolisnimada waa la soo wada maray marka waxaan idin sheegayaa Axmed Rashiid haduu yahay nin xeerin yaqaan xaq dhowr yaqaan xiskiisu fadhiyo oo xeerinaya saaxiibtinimo walaalnimo war saaxiibkiis sarkaalkii ay ahaayeen isku tababarka oo isku meesha ka soo qalin jabiyeen oo isku si wax u soo barteen oo amniga dalka ay joogaan wax u soo wada barteen ayuu ku xeerin lahaa wiilka walaasha dhashay qaraabada aabihiis iyo de waxa ka hadli maayo waxay isku yihiin iyo waxa ka hadli maayo inuu qabiil laakiin walaashiis ama deynaadeerkiis ilmaheedii garan waa ilaa halkan hadday ku maqan tahay maskaxda hadday ku maqan tahay waa dhibaato maandooriyuhuna dhibaato leeyahay wuxuu kala xeerin waayay saaxiibkiis ayuu xeerin waayay marka ninkan aabihiis waa nin sarkaal hadda aragtaan ciilkan iyo waxan macnaha wuxuu og yahay ninkan aabihiis inay isku academy ahaayeen oo hal meel ka soo wada baxeen inay ahaayeen saaxiibo isku dhow isku darajo iyo isku maamuusna ah taasuu garanayay wuxuu ogaa inay dad ehelay yihiin tan kale wuxuu ogaa oo isku haleyn ka qabay inuu abtigiis yahay waxna uusan ku samaynayn kuwa wacayay uu lahaa ehel bahalkii weeye waa kan waa niman ehel iyo qaraabo yihiin ilma abtigiisna way ahaayeen qaarkood kamaba filanayn kuwii u yeeray oo shirqoolayay inay dhibaatadan ku samayn karaan marnaba qalbigiisa kuma jirin inta waxaan idinku darayaa inaan faraxsanahay sababta aan u faraxsanahay wax kale ma wax badan buu ummadda Soomaaliyeed murugo geliyay wax badan buu dadka Soomaaliyeed dhiiliyo colaad aan dhexdooda oo lin kala dhex dhigay wax badan bay dad badani murugoon jireen oo isdhihi jireen ninkan ilaahu yaa malid ka qabta laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay inuu isagu murugo ku jiro isaga iyo ragga gaarka ah oo la shaqeyn jiray ragga gaarka oo la shaqeyn jiray markaan leeyahay uma jeedo qaraabay ahaayeen iyo ehel bay ahaayeen qabiil bay wadaageen ulama jeedo raggii waxa la cun kala lahaa wax ay wada cun kala lahaayeen oo wax wada cuni jireen kuwaas weeye kuwan ula jeeda ifahma dad badan baa laga yaabaa inay marka qof laga hadlayo ay u qaataan qabiil in laga hadlo qof iyo qabiil waa kala labo Soomaaliyay dhagaha furta daalinka ugu weyn haddii laga hadlayo ma aha in laga hadlayo qofkaas iyo qabiilka uu ka dhashay iyo meesha uu dhashay iyo ciduu ka soo jeedo waxa laga hadlayaa waa daalinka haddii sheekh laga hadlayo sheekha waxa laga hadlayaa waa sheekha laftigiisa ee sheekha iyo ubadkiisa iyo cidda uu ka dhashay aabihi hooyadii iyo reerku soo jeedo lagama hadlayo hadda waxaan leeyahay marka anigu waxaan ku faraxsanahay murugada uu caawa ku jiro iyo qalalaasaha qalbigiisa kaga dhex furan iyo sida uu isagu Nairobi ama isliidii ay dadku magiciisa kaga baqi jireen inuu isagu meel ka baxsan u dhexdo
oo uu meel ka baxsan ku dhuumaalaysanayo taas ayaa waxay ii tahay farxad Shukubaba waa guulaystay dhiiggii ka yimi dhalinyaro kale ayuu wuxuu u noqday badbaado u noqday tan kale waxaan idin sheegayaa Shukubaba waa nin uu garanayay ab iyo sinji u yaqaanay ehel iyo qaraabo dhowna ay ahaayeen una si kasta u yaqaanay saas wuxuu u yeelay inuu kuwa kale ku quusiyo dhalinyaradii markay arkeen ilaa iyo hadda saddex baa la laayahay war Soomaaliya ay ogaada gabar iyo laba wiil lama hayo gabar iyo laba wiil ilaa iyo hadda lama hayo jaani cirib meel ay dhigeen waa la laayahay dadka qaybi waxay leeyihiin waa baxsadeen ilaa lambaradoodii inay ka guuraan oo ay ka baqaan maadaama ninkani uu xiriir la lahaa dawladda intaan hadda de sheekadu xumaan inuu saas ahaa waxay ka baqayeen in GPS lagu raadiyo oo la soo qabto heer waxay gaareen inay lambaradii ka guuraan laakiin dhalinyaradaas waa la laayahay dhibaato badan oo ummadda dhexdeeda uu ku hayay maanta ilaahay baa banaanka soo dhigay ilaahay baa banaanka soo dhigay oo soo daahiriyay waxaad ku qalbi samaataan walaalaha qalbiga oo bartaa naga daawada Axmed Rashiid in uu isagu khalkhal ku jiro maanta Kenya dhexdeeda wuxuu ka eedaysnaa awal beesha caalamka wuxuu ka eedaysnaa Amnesty International Human Rights Watch meelahaasa awal laga dacweeyay muqaallo aan horay loo arag wax filimaan lagu meteli jiray buu suuqa dhexdiisa 10 xabad bush ka dhamaatay mid kale bum buu u bareeray oo banaanka la yimi oo adduunku dhagaha qabsaday oo yiraahdeen war waxaan markay sameynayeen nimankii aktarada ahaa jilliin bay ahayd jilliin laakiin mujrimkaani bareer buu u sameeyay war ilayn Afrikaan caaqnimo u dheertahay waa nooca yaab bay ku noqotay iyo mucjiso xogta kale oo maanta dacwadda ninkan ku socota waxa kamid ah ninkani shilka markuu geysanayay wiilkan markuu geysanayay kama tirsanay Nairobi wuxuu ka tirsanaa Garissa waxa dacwadda ugu weyn oo ka taala waxay tahay in ciidamada uu u soo diray islii ay ku sugnaayeen isagana loo geeyay oo cadaan ah wax kasta markuu u yeerayay markuu la hadlayay kulli markii loo geynayay wax kasta iyagoo cadaan yeelan oo duuban taasna maxkamad baa lagu horgeynaya waxa kale oo jirta yaana ka tagin waa meeshii ugu darnayd ninkan ciidamo la yiraahdo super power qayb ayuu laayay qaybtii kaleetana isaga ayaa la haray hadda ka hor ayaa waxa laga bedelay Garissa waxa laga bedelay Islii waxa loo bedelay Garissa qalalaasa iyo burbur buu yiri bilaaba war noogu yeeroy waa loo yeeray waa niman isagu dirsaday ma arki jirteen baaba gandaariya ma arki jirteen inta indhaag salaamsi filmaantii hindiga ah wixii lagu keeni jiray kuwa Mareykanka inaga taa Soomaalidu hindiga aad u daawataa alaabtii uu dheeri jiray isaga ayaa dirsaday maalinkii dhaway hore wuxuu ka sameeyay si amar la'aana in gabadhii iyo wixii la afduubayay afduub bilaaba bam dadkii baa la kala boolay dadkii ayaa si degdeg loo kala boolay ummadii khalkhal baa ku dhacay degdeg baa loogu yeeray isaga degdeg baa loogu yeeray bal xaaladda looma soo wareejin laakiin waxa loo yeeray bal xaaladdan inuu wax ka ogaado maadaama uu khabiir dhinacan ku ahaa dadka suuqa dhexdiisa ku dila Kenya laftigeedu ugama bedelin wanaag iyo maaragtay Soomaali xid iyo iyada laftigeedu meesha ugama bedelin awal xilka dhinacane waxay ka baqayeen Human Rights Watch ninkan muuqaaladii uu sameeyay oo caalamka ku baahsan xaalad degdeg markii jirto ay wax ka qaban waayaan waa loo yeeraa waxa la yiraahdo xaaladdan nala baar wuxuu ku keenay xaaladii uu rabay
weliba sharma boy xaaladiisa markuu fulinayay cidina uma yeeran kamana mid ahayn shaqadiisu gaarisay ahayd uu adeege candho ayuu ahaa ilaa iyo hadda hawsha uu wadaana waa hawshii candho ninkan bad baa maanta kusoo furmatay oo kusoo rogmatay badda kusoo rogmatayna waa tan candho in daraadii loo dilay codadka sirta ah dadka qayb baa soo daayay codadkii sirta ahayd oo laga duubay waa tii uu ku cadaysanayay inuu isagu soo diray oo wiilkan u soo diray عندنا كذبكيس واقعي يرو عطيما بدن باكي يالا ما انت يوتيوب بدا عالمك صوماليدو اي ليدا هاي اوردن عدكيسي ايا كوچرا يهان جباديسي مقالديسي اوردننا والله وضا هيا ما انتنا محكمة اي تالا وقت يدا دونة والله وعبو قصريا حالة دي ماشي مري دونتو قف قلدن او ادب درن او بلشدة لباتكو هيا كبر انت تتكلا سو دونتو يا اخلاق حمو امدا ماغا او امدا دبي او غبريسا كبحسن او الموسا كبحسنين او انين وين يا نير يا سياسي يا قف كست اوسا كبحسنين او قلد كماغيا او الا iyo hadii si kasta loo baaro hal qof uu sax ku maagaya uusan jirin ayaa waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay qabyaalad aan jirin iyo wax ummadda Soomaaliyeedna dadka inuu dadka u tuso ma garanaysaa qayb uu kala qaybiyo marka ummadda Soomaaliyeedna uu inta kala qaybiyo qayb meel ku xiro qaybtaas waa saas oo qaybtaas waa saas oo qaybtaas waa oo anaga saan oo kana saan kama aha anaga wax la yiraahdo kama aha isagu sida uu u hadlayo ma aha sida uu u hadlayaa waa sidii lacagta aan ku diidnay anagu in lacagna la ku siiyo oo dollar aan ku qaadano waa sidaan ku diidnay waa diidnay dooni mayno isaga sidaas ay ugu badisaa isagana waxaan leeyahay maxkamadii waa u diyaar meesha la joogaana waa Yurubna meel lagu kala dhunto ma aha waa la isu seeta dheereeyaa walax barkood cadaymaha ayay kaydiyaan laakiin maalinkay ku qabtaan lagama baxsano taas waa in la ogaada Afrika oo kale meeshani maaha qof kasta oo isagoo dibadda jooga dalkii wax ku laynaya oo wax ka horinaya may socon mayso taasi ma shaqayso mana dhici karto xariifkaana sheekadiisii maalmahan dhow ba insha Allah soo afjarmi doontaa annana maalmaha dhow bay soo afjarmi doontaa حلايا Soomaali ha midowdo ha israacdo qof kasta Soomaalinimada ayaa deeqda Soomaalinimada ayaa inaga badan taasa baaqi inaga hara intaasan ku soo gabagabeynaya waxaan idinkaga tagayaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh